يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا وحليف العلم والحكم نبي. بسم الله، الحمد لله، والثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، waxaynu sharxaynay xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam, dhaxalkii nebi maxamed, xikmadihiisii mid ka mid oo ahaa xaqu lmuslimi cala almuslim, xuquuqda ay isku leeyihin dadka muslimiinta ah, salaamta iyo axkaamteeda iyo nidaamkeeda waynu soo qaadanay. qodobka labaadna waxa weeyaan ciyaadatu lmarda. dadka muslimiinta waxyaabay xaq isugu leeyihin waxaa ka mid a maadaama bulsho walaala ah in markay bukaan ay isa soo booqdaan, oo qofkii bukaanka ahaa oo lasoo booqdaa macno weyn bay samaynaysaa. xikmadaha ku jira waxaa ka mid a qofkani maalmaha uu baahan yahay cidda soo booqata meel buu ku qoranayaa, maskaxdiisa meel buu ugu qoranayaa. mar hadduu kaa warhayo markaad xidhnayd, mar hadduu kaa warhayo markaad xanuunsanaysay, mar hadduu kaa warhayo markii cadow ku helay, mar hadduu kaa warhayo markaad aroosanaysay. fi lafraaxi wa fi laxzaan baa la ydhaha. waktiguu qofku faraxsan yahay, waktiga uu murugaysan yahayba ama uu dhiban yahayba in lala qaybsado. runtii waxay sheegaysaa qofkan inuu ka warhayo. hebel maalin heblaayo ima ilaawin halkii dadku ilaaween ee wuu u yimid. islaamkuna wuxuu doonayaa bulsho isku rakiban oo aan faraara lahayn oo filqanayn. cudurkuna sidiisaba dee allaha inaga caafiye, haddana balaayo waliba faa-iide leh, dhib waliba adduunka dheef leh. cudurku markuu qofka ku dhaco ilaahay qalbigu ugu safeeyaa, oo waxaa la yska ogsoon yahay caafimaadka qofka bani aadamka waa daciif. markuu caafimaad qabo ee uu ladan yahay muruqyadiisuu eegayaa, digtaasuu hayaa. waxaa laga yaabaa dad badan inay kibraan markay caafimaadka qabaan, laakiin qofku marka uu cudurku ku dhaco dhulku ogolaanayaa, edab buu yeelanayaa, itaalku leeyuu garanayaa, ilaahay buu usoo noqonayaa. marka cudurada qalbiga ku dhace ee kibirku uu ka mid yahay cudurada ilaahay qofka waa kaga caafimaadiyaa. faa-iidooyinkiisa waxaa ka mid a dunuubtana inuu ilaahay qofka kaga dhaafo, oo dembi kastoo qofka ku dhaca. nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka hadlaya wuxuu odhan jiray markuu qofka soo booqdo dahuurun insha allah, ilaahay baa ayaa dembiga kaaga nadiifinaya, saynu arki doona axaadiidta soo socota. marka faa-iidooyinkaasuu leeyahay, oo sidaynu ugu helayno barkhadda ajriga ayaa wixii balaayo qofka ku dhacana aynu ajri ugu helaynaa. sidoo kale ciyaadadu ama qofka buko lasoo booqdaa fadli bay leedahay, fadli iyo ajri ilaahay uu inoo qoraya ayay leedahay. fadligaas waxaa ka mid oo fadli weyna qofku inta uu la fadhiyo qofka bukaanka ah, ama ehelkiisa ha ahaado ama ummadda islaamka ee kale midku doonaya ha ahaadee, laa yazaalu fi ljuluusi fi maciyati illaah. ilaahay unbuu la fadhiyaa. iyaba waa arrin cajiiba. marka waxaa lagu yihi markaad bukaanka la fadhida ilaahay baad la fadhidaa. xadiid alquds ayaa nebigu ilaahay uu ka warinayaa
caalamka aakhira waxa ka dhacayana wuu inoo soo gudbinayaa. markuu qofku aakhiro tago ilaahay addoonkii uu la hadlayaa, wuxuu leeyahay hebelow waan gaajooday oo waxba imaad siin, waan haraaday oo waxba imaad siin, waan bukooday oo imaad soo booqanin. addoonkii wuu yaabayaa, wuxuu leeyahay ilaahay anta rabbulcaalamiin, ilaahay cid walba adiga iskale, oo sideed u gaajootay, oo sideed u haraaday, oo sideed u bukootay. markaa ilaahay wuxuu leeyahay miyaanad ogeyn addoonkaygii hebel inuu cunno u baahday oo cabid u baahday oo aanad waxba siinin oo uu bukoodo oonad soo booqan. waxaynu uga jeednaa qeybtaa dambe innaka low cudtahu lawajadtanii cindah. ilaahay wuxuu leeyahay haddaad hebel oo bukooday ama heblaayo oo bukootay aada soo booqan lahayd lawajadtanii cindahu, agtiisaad iga heli lahayd. markaa qofkii bukaanka ahaa qofku intuu la fadhiyo ilaahay buu la fadhiyaa subxaanahu watacaala. qofka ilaahay la fadhiyaana weher weyn buu helay. marka adaaba danaysanaya. arrinta kale ee jirtaa waxa weeye malaa'igta ilaahay ayaa u ducaynaya oo ku salliyaya qofka soo booqanaya qof buka. wax bilaa macnaabay inaga inala tahay, ama dadka qaarkood baaba u arkaba dadkaa buka iyo cusbitaallada iyo kuwaas hadduu soo booqdo inay wakti lumis tahay. dee waa qof aan aqoon u lahayn xigmadaha halkan ku jira ee nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam. cali bn abi aalib xadiid buu warinayaa. nin baa nin soo booqday kaloo suu yihi waryaae war ninkan isagaa miyaad soo booqato? waan soo booqday buui. haddaba xadiid bushaara baan kuu sheegayaa. nebigu waxau ihi maa min muslimin yacuudu musliman gudwatan ilaa sallaa calayhi 70,000 malak xataa yumsi. ma jiro qof muslima oo walaalkiisii muslimka ila waa xuquuqdii ay isku lahaayeen walaalkiisii oo buka soo booqanaya ma jiro. ilaa hadday taasi dhacdo waxaa ku salliyaya 70,000 oo malag. hadduu subaxdii booqday ilaa galabtii bay ku salliyayaan, hadduu galabtii booqdayna ilaa aroortii bay ku salliyayaan. salliga malaa'igtuna naxariis bay ilaahay weydiinayaan addoonka. malaa'igtuna markay ilaahay wax weydiiyaan wuu aqbalaa, waayo marka horeba waxaan ilaahay ogolayn ma yidhaahdaano kuba tallaabsadaan. arrintaasina waxaa kaloo kusii daray jannana wuu leeyahay qofkaas. xadiidku waa saxiix weeye. waxaad ku heshay salligii malaa'igta, waxaad ku heshay janno. intaasiba waa intaynu doonayno. malaa'igtuna inay noo duceeyaan, ilaahayna aynu janno ka kasbano, aynu ka helno subxaanahu watacaala. qofku marka had iyo jeer uu bukoodo waxa uu gartaa nicmooyinka ilaahay ayaa uu gartaa. caaisha nin u yimido waxa uu ku yihi waxaan ka cabanayaa xagga qalbigayga oo baryahan dambe qallafay, oo dareenkiibaa igu yar, naxariistii aan dadka u naxariisanayay ama naftayda aan ka naxayay ayaa igu yar. markaasaa waxay ku tidhi qalbigaa qallafay ama cibaado la-aanta iyo aada ka cabanayso iyo khushuuc yaraanta dawadiisaan kuu sheegayaaye cudi lmardaa wattabici iljanaa-is. dadka bukana soo booqo, jinaasadahana raaca. waxyaabaha lagu daweeye weeyaan mashaakilka daakhiliga ah ama qofka isgaran waaya ee qombobka iyo qallafka uu ku dhaco iyo naxariis darradu. waxaa haddaba ay leedahay qofka marka lasoo booqanayo waxay leedahay aadaab. aadaabtuna wax walba waa muhiimo. aadaabtu way qurxisaa camalka. marka aadaabtiisa lala yimaado qurux iyo qiimo iyo tayuu yeeshaa. aadaabtaas waxaa ka mid a qofka in la waraysto xaalkiisa. hebelow iska waran, sideebaa tahay, xanuunkii caynkaad ka tahay, maanta xaalkaaga waa sidee. sidaasuu nebigu ahaa sacdu bnu mucaad, asxaabigii la odhanayay ee dhaawac ahaa. subaxdiiyo galabtiiba uu soo maraya uu booqanayay. qofka waa in loo duceeyaa. anas ibn maalik wuxuu yihi rasuulku markuu dadka u galo wuxuu ugu ducaynayay adhib ilba'sa raba annaas ishfi anta shaafi laa shaafiya ilaa anta shifaaan laa yuqaadiru saqaman. ducadaa qiimaha badan ayuu ugu ducaynayaa. uu leeyahy ilaahay ow cudurkan ka kaxee, ilaahay ow caafimaadi. cidda wax caafimaadisaa waa adiga oo keliya. ilaahay ow caafimaad si aan cudur lahayn. waa xikmadii nabiga calayhi salaatu wasalaam.
waxa uu qofka xusuusin jiray oo aadaabta waxa ka mid ah tadkiiruhu biajri sabr hadduu qofkani sabro ajriguu leeyahay in loo sheego oo markaa wuxuu heli karayaa xoogaa difaacahi iyo dareen wanaagsan buu heli karayaa rasuulku waxa uu maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xasn walaa aadan walaa gam ilaa kafara allahu khataayaah xadiidkii saxiixeynka ku jiray qofka wax kastoo ku dhaca xataa shawkata yushaakuha buu leeyahy qodax mudayna ha ahaato isagoo yaro warwarayna ha ahaatee ilaahay dembiguu kaga dhaafaa aadaabta waxaa ka mid a inaan booqashada lagu dheerayninoo dee waa bukaane wuu daalayaa wakti uu nasta la siiyo aadaabta waxaa ka mid a an yufsax lahu fi lamal inaan cimriga lagu soo gaabininoo aanad odhanin kan kaba kici maysid sibaad u il daran tahayoo wallaahi iska dardaaran waad dhimanaysa ilaahay baa yaqaano goortuu dhimanaya inaad ka horeyn ilaahay baa garan doone waxa aad u dheeraysaa bal u yar nafisi cimriga oo insha allahu khayr bay noqon waad fiicnaan doonta waad bogsanaysaa waad ladaanaysa nabigu wuxuu yihi idaa dakhaltum cala almardaa fanafisuu lahu ljal bal cimriga u yaro dheereeyo ha ku soo kadin intuu kaa xanaaqi lahaa ee odhan lahaa talokanama dhaxalkaagu doonaya inkaar qabahan mise dhimashadaada almuhim inahaas waxay ka mid yihiin aadaabta ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inuu inagu anfaco wixii khayr aynu sameynaynana ajrigooda ina siiyo cudurkana caafimaad ilaahay inoogu bedelo inta bugtana cudurkooda caafimaada loogu bedelo wahada ma aquluhu astaqfiru allah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا وجيه